haddaba jira laba hawraarood oo ay soomaalidu ku mahmaahdo labadana ay raha u saariso. mahmaahda hore waxay ku saabsan tahay xidhiidhka ka dhaxeeya raha iyo biyaha oo ah noolo waliba wax aanu ka maarmi karin laguna wada dhaqan yahay. sidaan soo aragnay bahalkaa tabarta yari wuxuu ugu horreeyaa inta biyaha u baahata mar walba oo ay suuragal tahayna wuu ku dhex jiraa. ha yeeshee sida muuqata abaaldhacuna wuxuu ka mid yahay tilmaamihiisa. taasna waxaa laga garan karaa mahmaahda ay soomaalidu ka sheegto ee ah hadday biyo khayr leeyihiin dabadayda ha laga dayo, oo uula jeedo hadday biyuhu waxtar leeyihiin aniga ayaa ku naaxi lahaayo aniga ayaa ku weynaan lahaa. abaaldhaca ka sokow dabeecadaha kale ee raha laga sheego waxaa ka mid ah maangaabnida, taasoo u horseeda inuu si fudud u halmaamo dhibta uu jiilaalada soo maro. haddiiba biyaha ugu horreeya markuu dabaasho ayaa sida la yidhi wuxuu iloobaa oonkii iyo diyahaalkii uu kolka dhow ka soo baxay. haddaba diraac kulul xilli ay ahaydoo noolo waliba uu nafta u yaabay ayuu rah badani baktiyey. tiro yar ayaa ifkii kaga hadhay. maalintii dambe ayaa mid diifaysan oo naftu ku daba yar tahay wuxuu u tegay abeeso ay daris ahaayeen. wuxuu u doontay amaah biyood isaga oo ugu ballan qaaday inuu u gudi doono dhibicda ugu horraysa ee dayrta. taana way ka yeeshay. rahii oo biyihii amaahda ah la soo siiyey aadna ugu faraxsan ayaa ku soo noqday rugtii uu joogi jiray. si fiican ayuu ugu naalooday. ilaa xilligii roobda-a ayuu maalin baqaar ka cabbaayey kuna qubaysanayay. waagii dambe dayrtii haddii la gaarayo meel walba ay roobabkii ka da'een ayay abeesadii biyaha ku lahaydi rahii u timid kuna tiri, rahow wakhtigii ballanteenna waa la gaaraye amaahdii aan kugu lahaa ii gud. ha yeeshee codsigaas rahii dan uma gelin, kama uu jawaabin. waxayba uga caddahay dabaal biirawaaqla iyo kolba dhan ubood. abeesadii daynta ku lahayd ayaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo noqnoqotay. yaase u soo jeeda. dabadeed kol dambe oo ay daashay ayuu rihii cayaartii hakiyey oo xaggeedii u soo jeestay. sidii wax kale looga sugaayey ayuu yidhi, abeesooy maanta oo kale cidna lama hadlo. taas oo la xusuusto markii la arko ruux maan gaabanoo calooshi la cayaara qofuu abaaldhacu dabeecad u yahay sida rahana u dhaqmaaya. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo. waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.